gabadha ehel ahaan gabadha marxuumada u xigtay ama caruurta u xigtay oo adiga ay iskaga aqoon dhawayeen channelku waxa aan kusoo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالقة ولكن الزيو إذن لا يعني وعافمات قواء من البدونيد أكي جوكتا وحاني رجينا يناطي عافمات قبطان سؤال دواذا ومركلة إيو فيديو عسو اسمو جينا إن مدى أيان كلام مقانين لكن سكس أيان عاو إذن كو صلاتي ولي أنيقو أو كفر علينا يو أرين براها برشدة لسكو أرينتان intii aan kala maqneen laakiinse waxaan si wehel ahaan isku joognay dhanka TikTok-ga oo YouTube-ka ayaan in muddo ka maqnaa laakiinse TikTok-ga ma aanan ka maqneen inkastoo aan waxyaabaha qaar aan daadaaban jiray haddana hal mar ayaa waxaa meediyaha qabsaday wiil lagu magacaabo Said Ali wiilkaas ayaan caawa falanqeynaynaa iyo kiiska oo idilba هذا هري إلى جوكتي وكما سنتهاي داوشة فيديوغان هذه عطي وعصب طيفات لنسودو channel كوا channel كاغا سبسكرايب له فرقم بلا الكسي أوكو رافين وحول بإيزي صور دكتو هذه أن إن مدة كلام مخنين لكن سيتوس أيان هاد إسكوكو صو لاباني كيس كأن مانتي إذن هايو أم هرتين أم أفريو أيان وحن أكلا قادي دونا على أنحرستو مرحومة أبوكاتي هذا iyo Said Ali abukaatihiisa qof walba oo aqliga u saaxiib ahna kiiskan si cad ayuu u fahmi karaa ala u naxariistee marxuumada waxa ay haysataa ama waxa u doodayo abukaato sharci yaqaana aftahana oo haddana aad arkayso qof isku filan ama kiiska oo gacanta uu ku hayo oo cad in uu ku guuleysto oo kaliya in uu yahay dhanka ka soo horjeedo ama eedeysanaha abukaatihiisa ayaa waxa la dhihi karaa abukaatahaas waa qof iska brisdona sababtoo ah qodobada qaar oo ku difaacayay Said Ali ayaaba ahba ku oo baxar oo ku sii geli karabo balse Said Ali iyo abukaatahan aqliga u saaxiibka maxaa kala qabsaday balse anizi ahaan sidee ayaan u dhaliilay kiiskan bilowgiisa oo maxkamadii xukunka ku soo riday ayaan waxaan ku dhaliilay 4 marqaati la keenay markii laga reebo gabadha ehel ahaan gabadha marxuumada u xigtay ama caruurta u xigtay oo adiga ay iskaga aqoon dhawaayeen Said Ali gabadhaas markii tiri banaanka asla tagnay waxaan ii soo sheegtay in uu gacan u qaaday Said Ali kadibna gurigan ku soo laabanay xogaa taas ayadoo dhaliilka jirta laakiin gabi ahaanba tan gabadha waan iska dhigaynaa 3 ruux oo lagu qaaday marqaatigooda laguna xukumay ayaa wax kama jiraan la dhihi karaa sababtoo ah 3 wiilbo waxay ahaayeen kuwa mandoori isticmaalo kan hadda baraha bulshada qabsada ee Shamuuri markuu afkiisa ka qirtay yirina anigu qaad ayuu cunaayay sidii ayuu wax ku saxi karaa mise dadka qaadka cunaa maskaxdooda waa tamaam okay inkastoo aan kiiskaas gabi ahaanba aan dhaliirsanaa marqaatiyada ayaa waxa loo soo gudbay maxkamadda sare maxkamadan hadda la taagan yahay ayaa waxa ay ayadane markeedii hore aad ii qalbi jibisay wili dhaliilihii aan tii hore ku dhaliilayay ay markaan arkay waxaan doobay video yar waxaan dhigay barteeda TikTok-ga kadib anigoo islay hadda ma nimankii maskaxdooda aan batamaamka ahayn wax hadda ay cadeeyeen ama ay marqaati fureen meesha aanba oolin miyaa qof lagu tooganayaa anigoo tii yani iska dhaadhiciyay ayaaba وجي كلا يالتي شلا أي هالمر محكمة وحي سو بندقتي
in Sayid Cali dacwadiisii labaad ama wejigii labaad ama dhageysigii labaad la soo bandhigay. dhageysigii labaad ee waxaa ka soo baxay ama ka soo muuqday markhaatiyadii aniga aan u baahnay mid ka mida, walow weli aan sii dhaliilsanahay oo aan rabo wiilkii albaabka furay. hadda waad igarateen u malaynaya wiilkii albaabka furay, maadaama uu Sayid Cali ku andacoonayo aniga ayaa soo bixiyey oo banaanka soo dhigay ama gudaha dhexdiisaba meel ka mida ha dhigo. kulay adiga gudihiyaan ka soo saaray in aan gargaar fidiye ayaan u baxay, kadib ayaan baqday oo nafsadeeda meeshan way isii weys inaan sii joogo. haddii albaabkaas la jibiyey ama qof ka booday oo furay, waxaan u baahnahay in aan cadeemo buuxdo helno si kiiskan xujada ah uu usoo afxirmo. sababtu wax kale maahan oo gabadha hadda timid ahaydne markhaatigii aan u baahnaa raacday. aslan markhaatiyada meesha loogu baahnaa ama kiiska luul yacni waadax ka dhigi lahaa ayaa waxay ay ahaayeen gabadha tugtugka la raacday oo dhaawaceeda qaaday, wiilka tugtuglaha iyo wiilkii meesha ka booday ama albaabka furay. albaabka Sayid Cali hadduu kor ka xiray, wiilkii furay ayaa kiiskan xujada furi karo. kiiskan waa kiis iska xujaa, saa u jeedaan eedeysanahan ma haysto abukaatooyin wanaagsan, inkastoo wuxuu u badsaday oo haddana dhowrka xabo u keensaday ma garanayo, laakiinse koley inta difaaciisa qareemadiisoo dhan mid dhaamaa ma ku jiro. markii taas laga soo tago, Sayid Cali iyo gabadha luul hal eri ay iskaga mid yihiin. erigaas oo ah gabadha waxay tiri anaga inaan hurdeeno ayuu u maleeyay oo anaga waa soo jeedna ani iyo walaalkay weyn, oo qolka waxaa naga soo saaray adeerkeen isla Sayid Cali. asigan wuxuu yiri caruurta aniga soo saaray oo hooyadood ayaa u dirtay oo ku tiri ilmaha iiga soo saar. 6 cunugba inuu gacantiisa kusoo badbaadiyay. gabadhane hadalkeedii ugu horeeyay aan maqalno ama baraha bulshada soo dhexgalo ayuu ka mid ahaa in ay soo saaray Sayid Cali. haddii hadda la wada rogay ma garanayo, waxa kaliya oo kiiskan furi karo waa wiilkii albaabka ka booday. wejigii saddexaad lacalla haddii lagu soo guuleysto ninka albaabkaas ka booday oo Sayid Caline gabadha xaaskiisa iyo caruurta caloosha loogu wadibo dhiigooda laga daadiyo oo asigana diltoosho lagu xukumo. baraha bulshada dadka ku nool oo idil talow ma dabaaldegi doonaan oo ma farxi doonaan. kiiskan oo wax markhaati lahayn, markhaatiga keliyan oo asiga yahay, waayo waa asiga iyo allah ilaahigii labadooda uumay oo ifkana keenay. caruurta oo kaliya ayaa wax og, xataa caruurta waxba ma ogo oo waxbay arkeen wayna sheegeen. gabadha inkastoo ay tiri hooyaday gubanayso oo hulciisa bisaan arkay, laakiinse ma aysan dhihin asigoo shidaalka ku shushubaayo oo taraq ku daarayaan arkay, ma aysan dhihin. kiiskan markhaatigiisa waa Sayid Cali, eedeysanihiisana waa Sayid Cali. gabagabadana waa arki doonaa, laakiinse dadkan faraha badan oo leh muxuu u qoslay. qosolka iyo sheekada horta aad u jeedaan waa inta aysan imaanin garsoorooyinka oo hoolka oo faadi ahay ama in yar oo nasasho la qaadanayay. odayga haddii uu madaxa dhulka iska dhigtay micnaheeda maahan in uu hadda Sayid Cali yacni la jecel yahay, Sayid Cali in yacni oo inuu la sii fasaxayo micnaheeda maahan. dadka qabiilka baxsadka oo ahna waxaan dhihi lahaa waa aad mahadsantihiin sida aad qolada ugu wada kacsantihiin. waa jinsiyo idin leh hadda hore ila joogtay waa ku mahadsantahay daawashada videogan. haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelku waa channelkaaga, subscribe dheh, furgan baleelka si uu ku dhaafin wax walbo ay sii soo dhigto. waa walaasha ziyo ku leh dunidu waa wax yar ee gaaban, is xisaabi inta aan lagu xisaabin ka hor. bye bye.